laga qabiil weyn yahay daarood baan ka hadlaya asaguna wuxuu ka hadlayaa jifi ka mid ah ma jirteen laakiin ma taqaana marka horta laangaab inaad tihiin waxa ka dhigan taqaana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أد بلدي سلام يا ملك استو أجوكتان يسي كستو آدي مغلسان وأنيقو خضر أولالكي مسكين كالله نوحا رابا ماتا برنامج ير أو هالكان عن رباينا قبطو أو برها برشادة مالمهان لقبا قوضو مالا دوني برنامج كان إنو قاب هاب قبيل أم وجه قبيل ويشو لكن وحن كلي دوني يا قبيلكو عياما قبيالة أياه ولقي تم يلو صفر قبيل إنان كشيكين المجال لكن ما أنت waxaa igu kalifay in aan barnaamijkan aan ka hadlo dad badan oo maanta qabiilo kale ku qabay ama jirta ku qabayna waa ku baray khadriyada waa nin laandheer dhalaya waa nin maalis muga meel aan u dhaafay maalis muga ma garanayo laakiin waa leel kasta walaan tusaalaha haddaa soo bandhigo ama ku taabsiiyo taariikh la soo maray haddaan kuu tiximo baaro tabtii aan ahaan jiray haddii aan tilmaan bixiyo 9 sano wixii tagay haddii aan ku toonsiiyo anoo toomahaas mudug daga oo 10 milyan gaara taageero iyo maal midnaba aanan tabahaynin cidna aysan ii talinahayn tii alla badane tabtii ay ahaataba anoo nolol tibaaxaya oo tanada lay bixiyay oo laygu wada taaho ruuxii talwaayana aniga igu tallaabayo marna aanan lagu taagahayn biriyo tooreeyba oo tacadi loo geysanayn tuujin iyo xoog leh annakoo halkaas taagan oo dunida taariikh leh digaaga kaga muuqda waa nin reer mudug oo khadriyada liyaada inta taqaan inta aqoon la sheegay qabiilkiis waa maalis waa daaroodo waa maalis muge eeraan in dhaafiyo garan mahayo weligii tan meel u soo fariistay qabiil inaan ka sheekeeyo ma jecel kaliya waxaan rabaa inaan ku baro cashar yar oo asaga ka maqan in aan asaga inta la midkaaba ogeysiiyo nimanka la yiraahdo maalis muge yeeyi maalis muge horta waa naynaas سيد وأنا ناس بحضي مقعود عادي أنا مكان أنا إدين شيء برامج كاس أو فاهسن أيان ربع مانت أنا هلا كان تيرة بصار waxaan leeyahay ogaadi qabiilka barta qabyaalada barta ma reexaan waxa ugu liitaa waa reer diini walbahaantaan la hadlayaa war waxaan leeyahay war gabdhihiina masaakiinta waardiyeysta oo fuftadooda ilaalsada oo tolkiida xoreyn lahaa warsagal iyo majartamaada xoreyn kale oo tago waxaa tahay warun xoreeya dhah hawiye horta intaanan gudaha u gelin barnaamijka waxaan ka cudur daaranayaa qabyaalad anigu nin banaanka abana beri baan ka ah laakiin dee in la isbartana way fiican maalis muugayay waa lifta aniga jifida aniga aan kasoo jeedo markaa horta waa curadkii leelkase waa sida caadiga waa curadkii leelkasena waxaa loo kala saaraa 3 baa loo kala saaraa 3daas iyay kala yihiin marka waa muuse cali maxamuud cali iyo haashim cali leelka 3 ugu waaweyn baan ka hadlayaa ma si kala saaraya laakiin 3 ugu waaweyn horta leelkasena ninka waa سيدا هرتا أنا من كشيء مرة لكن وبين وين أو دارو بين كستو صومالي ويد يعني شو كمجا عمالس مو قلب بحي وهاشم علي وأنا بقركي وهري وقف صومالي بقركي وهري قف صومالي لوكشيو بقرتوي أصلا موعد بحال أوريجال ديف وهراد يترى رابي وديف رابي ديف ترى معناها هراد قوي مجا عذاب الأوريجال قفكي أبهنا meel kasta way ku jiraa uu ka soo baari kara boqortooyadii diiftile ninkii hadda raba inuu barto googlaha ku qori kartaa youtube ka taariikhda ka raadin karaa waxaan hadda ka sheekeyn kara ma ahan marka nimankaas inaa hadda ku fogaado dee nimaan taariikhda aqoon uga sheekeyn maya wiilka yarkaa waxaad iga gaarsiisaan adeer dadka kala baro marka pointiga hadalka ma heshin runtii لا على سو يكرر نسو قلت واحد لهيس هبريرتين بانا نين هبريان نما شيغانيا ولي ادي كور ما arag marka horta ninkan nin dadka yaqaan ma aha maalis muge marka magaca maalis muge waa naynaas magaciisa caadiga ah waa hashim cali tamsala garan
waa beel kamid lafa kamida lafaha leelkase la iyagoo leelkaso dhan waxaa la isku yidhahdaa tanada daarood tanadaa la isku yidhahdaa tanada daarood baa la isku yidhahdaa intaas qofkii ay uga jirto mugdi waa ii sheegi karaa oo ninkii raba barasho uga baahan maanta leelkase iyo say u kala baxaan iyo jifi haddaan u kala saarayna waqti dheer bay ugu qaadanaysa okay marka leelkase saan idiin sheega waa 3 qabiiloo waaweyn waa muuse cali oo laysku dhaho reer muumin aadan iyagaa lafa usii kala baxaa sii kala baxbaxaa kow iyo reer faqi ismaaciil oo la isku dhaho reer maxamuud cali iyo beesha saddexaad oo ah maalis muge oo la isku dhaho reer haashim cali saddexdaas ma la kala helay saddexda reere ugu waaweyn leelkase markii la yidhaahdo saddexdaas haashim cali oo maalis muge keligiisba hal qabiil ah saddexda qabiiloo ugu waaweyn leelkase buu wuxuu leeyahay maanta ay saddexda qabiil ugu waaweyn saddexdaas waaweyn saddexdaas mid ka mid ah weeye maalis muge saddexda qabiiloo leelkase ugu tanada daarood saddexda ugu waaweyn mid ka mid ah baa la yidhaahdaa maalis muge qofkaan aqoon sidaas ha u ogaa marka qabiil ceeb maahan qabyaaladaa ceeb keliya waxaan doonayaa ayuub ninka la yidhaahdo oo aan xagga saaxiib ku nahay baraha bulshada xagga facebooka waxaan rabaa inaan u caddeeyo horta ninkan reerkii anigu aan ku sheegay run ahaantii reerkaas reer nasaba wey una gafay afkayga laga maqlan laakiin waxaan xaqiijinayaa ayuub kabtan ayuub yaa waaya horta rag laga qabtay baa ku jiray marka maxaakiimta raggaa la qabtay buu ka mid ahaa asagu kadib qabashadiisii kadib xabsiguu galay wuu xirnaa muddo kadib waxaa la yidhi waxba ku noqon maysid meeshaad ka timide halkaan noqo reerkaasoo reer hebelana waa tahay noqo oo magacaa sheego halkiibuu ku joogayo sidii muddo ku joogay qurbaha wuu kusoo aaday sidii buu kusoo galay waa hadda social mediaha buuqa iyo qaylada iyo anoo reer hebela anoo saana ku faanay ninkan qabiilka u sheeganaya horta xaqiiqatan reerka u sheeganaya ma aha laakiin ma taqaanaa markaa horta laangaab inaad tihiin waxaa ka dhiga ma taqaanaa nin baa wuxuu yidhi wax kasta waxaa isku fuuqsaday ya ku fuuna xad yaa isku fuuqsaday hadda ree aan egala ooyaya isku fuuqsaday ooyaya isku fuuqsaday ooyaya isku fuuqsaday bilaabo sheekada horta ree aad ka soo waxaan sunnaa mataqaan hay may wadanka abaga dhashay wallah wallahi billaah ninkan waa nin maxaakiimta ka yimid oo dhowaan la yidhi reerkaasaa tahay reerkaas uusan ahayn iska noqday reerka uu kasoo jeeda ee uu ka aftirsanaa reer aan sharaf iyo maamuus iyo karaamo iyo cizo u haya weeye waxaan ka sheegayna ma jirto afkayga laga maqli maya reer baa saasa iyo saan keliya waxaan ku karbaashayay maalintaas in uu ka dego qabiilada waxaan u ka sheekaynay inuu iska daya waa laga qabiil weyn yahay daarood baan ka hadlaya asaguna wuxuu ka hadlayaa jifi ka mid ah majeerteen marka maamuuska ay kala leeyihiin iyo baaxadda u dhaxaysa qof walba uu fahmi karaa caqlan maalis muga wuxuu la siman yahay majeerteen oo dhan lasoo simaya yacni saf buu la soo gelaya waaya barnaamijka marka xiisaha la idiin haya waxaa weye wiilkan yarka ah ee wareeray ee social media ku dhex waasha horta marka waad wajaah waa nin aan diinta ay ku yartahay runtii aan aqoon sida mataqaanaa bulshada la dhaqankeeda loola noolaado wuu fakeray wuxuu yidhi see wax kala kicin kartaa sidee mataqaanaa barnaamij qabyaalad ku kala kici majeerteena baa tahay saana baa tahay run ahaantii maanta xaqba uma ay lahay inaan yacni maba qurux badnaba aniga oo haashim cali ah in aan jifi hoose la tirsado xoogaa waaba liidnimo marka totally wiil yar oo la yidhi isagoo weyn reerkaas baa tahay beesha sharafta leh ee qiimaha leh ee qadarinta leh ee maalis muuge ee boqortooyada ah xog u dhimi maayo marka halkan waxaan aad iyo aad uga raaligelinayaa beesha maalis muuge oo aan leeyahay raalli ahaada curadkii leelkasaa tihiin laakiin reerkaas waa reer aan hadlin anaa ugu afdheer anaa ugu saqajaansan anaa baraha bulshada ugu qaylo badan aniguna xagga diinta iyo maadigaba kan waa ka badaya waa kaga fiicana marka xoogaa wiilku waa yaro jaahin weynaan qurbaha kusoo galay aqoon dari hayso rag yaqaan ahayn isagoo weyna lagu yiri wareerkaasaa tahay daba qabso majarteen baa tahay oo reerkaasaa kasi tahay ku dabadhig lagu yiri wey
jawaab marka ma ahana 10 u noqoto intaas ka odagaa waxaan leeyahay dadka kala baro aqoontaada siyaadi wax baar cilmiga dib u laabo waxna baro ay Soomaaliya sari waxyaala mar labaad baan ku leeyahay saaxiibkay saaxiib ayuu tani kooba fiicna qabyaladan iska daa qabiilkan iska daa wax ku qurux badan ma aha meel kasto aad tagtid daahir calasow iyo ayuu kaarlo haddaad ugu faantay nin hebel abaan ahay dawaysa ku aqoon haa bay ku leeyihin waa runtaan ku saabtumay si fiican bay isku garanay laakiin ma taqaanaa marka horta laangaab inaad tihiin waxaa ka dhigan taqaanaa nin baa wuxuu yidhi wax kasta waxaa isku fuuqsaday ya ku fuuna xad yaa isku fuuqsaday hadda ree aan egala ooyaya isku fuuqsaday ooyaya isku fuuqsaday ooyaya isku fuuqsaday iyo bilaaba sheekada horta ree aan kasoo waxaan sunnaa mataqaan hay may wadanka been la soo wallah wallahi billaah mar laakiin anigu si hoosan ku garanaya ayaga u faan laakiin aniga ima faani karin 2021 kala maraya waan ka xumaa run ahaantii aad baan uga cudaaranaya wallahi 2021 maanta in qaybi laga wada hadlayo jawaab marka aan ma soo fariisan meeshaan ee 10 aan ugu barayo unbaa u soo fariisan dib dambe laga maqlayo sheeko noocaas oo dambana waa balan in iga maqlo aad baan idin salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.